Soomaalidu waxay oran jirtay warkii hore war soo dhaaf December 14, Mountain View, California. Maalin jawigu iska deganaa si caadi ah baynu shaqadu ugu socotay gudaha xarunta Google. Shaqaaluhuna si tartiib ah bay u wateen howlahooda walow xilliyadaas ay soo dhaweyd fasaxyada Christmaska. Mid ka mid ah shaqaalaha amniga internetka ee Google-ka ayaa xaqiijinaya kombiyuutarkiisa. Wax walbana waxay u muuqdeen wax iska caadi ah, laakiin wuxuu arkay xog badan oo hab aan caadi ahayn ugu socota cinwaan IP dibadda ah, taasoo dhalisay cabsi weyn oo soo wajahday shaqaalihii iyo dhammaan kuwa shaqada ku lahaa. Muddo bil ah, weerar aanan la ogeyn ayaa dhanka internetka ah ayaa hab qarsoodi ah uga dhex socday nidaamyada Google-ka. Markii ay shaqaalaha ku baraarugeen already waxay ahayd xilli dambe, weeraryahanadu already waxay ka gudbeen derbiyadii difaacyada ay lahayd Google, iyagoo adeegsanaya meelaha nugul ee laga geli karo Google, ayna bilaabeen inay xogta ku jirta mareegtan ay si tartiiba uga xadaan shirkadda. Balse arrimahaas oo dhan saaxiibayaal waxaba ka sii badan. Hawshan ayaa socotay dhowr bilood iyadoon cidina dareemin ama ogeyn waxa halkan ka socda. Saaxiibayaal aan idinku sii dare, wax kasta waxay ka bilowdeen waa hal sawir ama xitaa aynu dhahno waa kilib yar oo aan cidina ogeynin, kaasaana noqon doona mid ka qarribi doona xogo badan oo muhiim u ahaa shirkadda Google. Bal saaxiibayaal aan idinka dhex galo, hal mar oo aad channelka aad subscribe-taas iyo like-taas yaro meesha ka muuqata aad kilik siiso waxba kaa dhibi mayso, balse iska taataabta kheyr alla idin siiye. Commentin inoo reeb oo ku aadan sheekada. Waayahay saaxiibayaal, aan kusoo laabano sheekada cajiibtaha iyo sida ay wax u dhaceen. Bartamihii 2009, koox weeraryahano hackers ah ayaa bartilmaameedsaday shaqaalaha Google iyaga oo helay ciwaanadooda emailka ah si ay u sameeyaan email been ah oo ay si heer sare u qaabeeyeen iyagoo u ekaysiinaya kuwa sax ah. Haddaan tusaale u soo qaadano, waxaa jirta shaqaale aan ugu yeeri karno Jason iyo saaxiibkiis Michael ayaa helay email uu u maleynayo inuu ka yimid Jason oona ku saabsan howlo shaqo, laakiin waxa uu ogaan waayey in emailkaasi uusan ka imaanin Jason, waxa uu ka yimid weeraryahanadii ama hackerskii. Habkani ayaa guuleystay sababtoo ah weeraryahanadu waxay sii ogaayeen asxaabta isku dhow ee macrifada ah, waxayna geli doonaan akoonadooda emailka. Markaa kadibna waxay falanqeyn doonaan wada sheekaysyadii dhexmaray si ay u fahmaan habka ay wax u qoraan. Tanina waxay ka caawisay inay soo diraan fariimo khiyaano ah oo 100% oo la mid ah kuwa sax ah, iyadoo aan Michaelna ka warqabin. Email baa waxaa loo soo raaciyay linki, wuxuuna tusayaa linkigaas website aan wax dhib ah ka muuqan marka loo eego dusha sare, laakiin gudaha waxaa ku jira malware, barnaamij dhibaato hor leh sababi kara oo ay adeegsadaan hackerska. Walow xilliga arrintan dhacaysay aysan jirin wax digniin amni ah oo tilmaamaysa waxa socda, shaqaalaha Google lama dareemin wax shaki leh. Laakiin saaxiibayaal, halkaas ay khiyaanadii dhabta ahayd ka bilaabantay. Weerarkani wuxuu si qarsoodi ah u dhex galay nidaamyada Google, isagoo dhaafay difaacyada oo bilaabay xatooyada xogta ku jirta gudaha Google. Arrinkuna ma ahayn maalmo oo keliya, waa bilooyin ka hor inta aanan la ogaan. Kooxda amniga Google waxay isugu yimaadeen kulan degdeg ah, waxayna la yimaadeen xal cusub si ay u aqoonsadaan weeraryahannadan. Waxayna bilaabeen inay si tartiib ah u ballaariyaan baaritaankooda. Kombiyuutar kasta oo xarunta Google yaala waa la baaray, waxayna xitaa sii wadeen hawsha ilaa habeennimadii. Waxayna furfureen hard drives-yada kombiyuutarada shaqaalaha si ay u hubiyaan mid kasta oo iyaga ka mid ah. Kadib, kooxda amniga Google waxay bilaabeen baaritaan qaran iyagoo kaashanaya khubaro amni oo caalami ah si loo raadraaco halka uu malware-ka ka yimi, loona qiimeeyo dhacay iyo tan ugu muhiimsan iyo in la fahmo sida weerar heerkan la eg uu ku dhacay oo uu ku sii socday muddo dheer iyadoo aan la dareemin. Kadib toddobaadyo cilmi baaris iyo falanqeyn waqti dheer socotay, cilmi baarayaashu waxay gudaha u galeen koodkii waxyeelada lahaa, waxayna ka heleen file path oo ay ku jirto ereyga Aurora, taasoo ahayd raad qarsoon oo laga yaabo in weeraryahanadu kaga tageen si ula kac ah ama si aan ula kac ahayn. Tani waxay sababtay in howlgalkaasi loo bixiyo magaca Operational Aurora. Lama caddayn in hackeradu ay si ula kac ah uga tageen magaca Aurora. Laga bilaabo waqtigaas, shirkad kasta oo tiknoolajiyadeed oo waaweyn waxay dib u fiiriyeen nidaamyadooda difaaca amniga. Laakiin hal su'aal ayaa weli qarsoon: waa kuma maskaxda dhabta ah ee ka dambeysa weerarkan? Maxayse ahaayeen ujeedadooda? Ma waxaa jirtay arrimo gaar ah oo ay u xadeeyeen xogtan Google? Iyo su'aasha ugu weyn, sidee bay ku suura gashay inay ka gudbaan xindaabyada adag ee Google oo ay muddo dheer ku qarsoonaadaan isla nidaamka Google? Trojan-kii sameeyey waxa uu furay marin qarsoon oo sir ah oo loo yaqaan encrypted tunnel, taasoo siisay hackerka gelitaan toos ah kombiyuutarada la weeraray. Halkaas ayuuna weerarku ka faafay oo ku fiday guud ahaan shabakadda Google. Hal taabasho oo keliya
oo aanu qofku ogeyn ayaa furay albaab qarsoon oo u dhexeeya nidaamyada amniga Google iyo weeraryahanada. Hakaradu waxay shabakada Google dhexdeeda ku beereen virus kaasoo ku dhex dhuumaleysanayo iyaga oo u ekaysiinaya inuu yahay xog caadi ah, laakiin waxaa lagu baraarugay baaxadda uu leeyahay weerarka xilliga Christmaska amba ciidaha Christmaska. Intii lagu jiray baaritaanka waxaa la ogaaday in arrintu aysan ku koobnayn Google. Weerarku waxa uu ahaa mid ballaaran oo bartilmaameedsaday shirkado waaweyn sida Adobe Systems, Yahoo, Morgan Stanley iyo kuwo kale oo badan oo ka tirsan ganacsiyo iyo dhaqaalaha. Weerarka waxa ugu horeeya lagu ogaaday kormeerka taraafikada markii kooxda amniga ee Google ay dareemeen korar aan caadi ahayn oo ku yimid xog sir ah oo la diraayo. Qadarka xogtaasi aad ayuu uga badnaa intii la filan karay, waxaana uga sii darnayd in xogtaasi loo dirayay ciwaan IP dibadda ah oo aan la aqoonsan karin amba xitaa ugu yaraan aanan la tixraaci karin. Markii ay Google ku baraarugeen halista arrintan, waxay u yeeratay ciidan gurmad ah, khubaro amni oo ka kala yimid xafiisyada Google iyo Mareykanka iyo dhammaan dunida dacaladeeda. Qaar badan waxay joojiyeen fasaxyadoodii Christmaska iyaga oo si joogto ah u imanaya xarunta ilaa xitaa xilli habeenimo ah si loo xaliyo arrinkan, laakiin weli way ku filnaan weyday in keligood xaliyaan. Google waxay kireysatay shirkadaha amniga internetka si loo raadiyo hakarada loona joojiyo jebinta. Kooxda Google waxay xireen qaar ka mid ah adeegyadooda, dhammaan xiriirada dibadda waa la joojiyey, qofna looma ogoleen in xarumaha gudaha loo soo galo aana ka ahayn shaqaalaha. Wax kasta waxaa lagu waday sir iyo jawi degan si aysan wax xog ah u bixin. Gudaha baaritaanka waxaa weerarka lagu qaaday daldaloolo cusub oo aan aad u adkayn oo ku jiray browserka internetka ama loo yaqaan Explorer 6, taasoo loo yaqaan Zero Day. Diiwaanada ayaa muujiyay in hakaradu ay galeen serverada, yacni ilaha koodadka ama Google oo loo yaqaan source code, waxayna isku dayeen inay jebiyaan akoonno Gmail ah oo gaar ah. Akoonnadaas qaarkood waxaa lahaa dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Shiinaha, kuwaasoo horey cadaadis sharci la kulmay. Waxay arrintan noqotay mid cabsi leh. Tuhunku waxa uu si dhaqsi ah ugu jeestay Shiinaha, iyada oo caddayntu muujinaysay in weerarku uu suurtagal ahaan ahaa mid dowladeed, laakiin ujeeddada keliya ma ahayn inay bartilmaameedsadaan dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha. Hakaradu waxay sidoo kale doonayeen hantida ugu qiimaha badan ee Google, waana koodka ilaha Google. Haddii la xado, dib ayaa loo samayn karaa si loo abuuro barnaamij la mid ah. Warkan aan idin fahansiiyo saaxiibayaal, haddii hakariskan ay helaan xogta ilaha koodadka Google, waxay si fudud u abuuri karaan mareeg la mid ah Google, taasoo hadhow sababi doonta in dunida laga arko ama laga isticmaalo laba Google, mid original ah iyo mid ay hakaris leeyihiin. Tanina waa saameyn weyn oo ku imaan karta Google. Kooxda McAfee ayaa la sii fajacday markay ay arkeen in koodadka Google aysan ahaynba kuwa aad loo ilaaliyo, yacni ma lahan nidaam amni oo dhammaystiran. Weeraryahanadu waxa ayba horey u jebiyeen isla dhanka difaacyadii koodadka iyagoo adeegsanaya virus cusub. Qaar ka mid ah koodadkaasi waa la xaday. Ficilka ay samaysay Google waxay noqotay in la aqoonsado viruska oo la go'doomiyo ama la hakiyo nidaamyada la weeraray. Kombiyuutarada la jabsaday ayaa gebi ahaanba laga joojiyay shaqada si looga hortago xogo kale oo si gasha gacanta hakariska. Waxaa la xoojiyey la socodka shabakada iyo qalabyada ogaada weerarada. Amniga Gmailada waa la cusboonaysiiyey iyada oo HTTPS laga dhigay hab default ah, waxaana la soo kordhiyey difaacyo dheeri ah sida xoojinta laba geesoodka ama waxa loo yaqaan two-factor authentication. Weerarkan wuxuu noqday barta jabinta ee xiriirka u dhexeysa Google iyo Shiinaha oo horeyba u xuma xiriirkooda. Sanado badan Google waxay la daala dhacaysay caqabado la xiriira cunaqabatayn, xayiraado xagga suuqgalka ah oo ka timaaday Shiinaha, iyo xitaa arrimo xuquuqda aadanaha oo Shiinaha ku saabsan. Inkasta oo weerarkan uu ahaa mid iska dhexdhexaad ah, balse Google waxay u noqotay dhibicdii ugu dambeysay ama cashir aynan dib ugu laaban. Waxyaabo badan ayayna ka barteen, waxayna sameeyeen updates cusub. Bishii Janaayo 2010, Google waxay daabacday qoraal blog ah oo ciwaankiisu ahaa qaab cusub oo aan ula macaamilno Shiinaha, taasoo calaamad u ahayd isbeddel weyn oo ku yimid mowqifkooda. Google waxay bishii Maarso 2010 u wareejisay howlaha raadinta ama waxa loo yaqaan search operations dhankaas iyo Hong Kong, iyada oo gebi ahaanba uga baxay suuqa Shiinaha si ay isaga ilaaliyaan hanjabaado amni oo dhici kara mustaqbalka. Daawade, Hong Kong xaggee ayay ka tirsan tahay?
qaybta hoose commentiga nagula wadaag. Weerarkan wuxuu ahaa mid taariikhi ah waxaana lagu xusay warbaahinno kala duwan. Google-na waxay raadsatay caawimaad waxayna la shaqeeyeen hay-adaha dowladda Mareykanka sida FBI-da iyo NSA-da iyo baaritaan dheeraad ah oo loogu sameeyey loogana hortago weerarada mustaqbalka. Howlgalkan waxaa loo bixiyey Operation Aurora wuxuu saameyn weyn ku yeeshay qaababka amniga ee Google-ka iyo xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Wuxuu ahaa digniin weyn oo shirkado badan ku baraarugeen inay iska adkeeyaan difaacyadooda. Wuxuu sidoo kale fariin cad u diray kooxaha hakarada, xitaa shirkadaha ugu waaweyn adduunka waa la jabsan karaa. Kooxaha weerarka fulisay oo la yiraahdo The Underwood Group waxayna ka qarsoomeen muuqaalka dunida kadib sanadkii 2013. Si kastaba ha ahaatee saaxiibayaal, xeeladooda iyo saameyntooda weli waa laga dareemaa Shiinaha. Warar xan ah ayaa sheegaya in xubnahooda dib loogu kala diray unugyo kale oo sirdoon ah oo dalkaasi Shiinaha uu leeyahay, laakiin cidda ay yihiin iyo meeshay hadda joogaan lama yaqaan. Dabcan fikirka iyo aragtida Google ay ka aaminsantahay arrintan ayaa tilmaamaysa in udubdhexaadka weerarkan uu ka imaanayo dhanka iyo dowladda Shiinaha, maadaama Shiinaha iyo Mareykanku aysan isku fiicnayn xagga siyaasadda. Saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta waa intaas. I hope inaad ka heli doontaan. Sidaas haddii tahay muuqaalka like inoo saara. Until we meet, bye bye.